ilaahu caasinimada iyada ha noo qaban ilaahu ceebta iyada astur ilaahu cibaadada iyada tii geeri gaadhay ka dhig ilaahu qabriga iyo quluubta noo nuur waxay isweydiin la roobka inuu yaraado maxaa keena laba sababood baa la odhan karaa sababka koobaad waa in ummaddaas la imtixaamayo oo imtixaan la mariyo oo loogu talagalay in la imtixaamo oo iimaankooda la jarrabo oo la tijaabiyo inta uu leeg yahay waxaynu u baahannahay jeebka inaynu isu furno dadka masaakiinta ah dadka reer miyiga ah oo waxa ugu daran oo haysaa maanta ay tahay biyo la'aan ciddeenna wax lagu tuhmayo ama wax awoodi karta qadartuu awoodi karaa in kastaba ha ahaatee in jeebka aynu furno oo dadka masaakiinta ah iyo dadka baadiyaha ku baaba'aya inaynu u gurmano waxaan rabnaa inaan waxaan cunaynaa ay xalaal noqdaan ayaantan waxa ugu badan oo ummadda tan rogay waxa weeye xaaraantii ayaa xalaal noqotay xalaalna waaba la iska ilaaway wax yar baa dadka xalaal cuna meel kaleba iyada aan loo dhaqaaqin magaalada hadda aynu joogno oo ku noolnahay waxa ka dhacaya ama ka jira yaa baa inoo ku filan culays iyadoo aanba inta kaleba loo gudbin saynu ognahay waddankeenna waxaa ku soo batay dhacdooyin aan horey u dhici jirin oo folxun oo kufsi ah weliba kufsiga dil loogu darayo dadku waxay u jeedaan nin laamihii ku shaqo lahaa dadka dembigaa galay iyo dawladdu sidii ay cadaaladda u keeni lahayd dawlad qofkii ku jiraa xalaal shay cunaa waa yar tahay qofka ganacsi ku jiraa xalaasha cunaa waa yar tahay xataa reer miyiga hadda dhibaatada inoo ku tiro badan ay qaba ee roob la'aanta iyo abaarta ah xalaasha ay cunaan waa yar tahay waxaa intaa dheer zakada iyo sadaqada lama bixiyo dadkuna haddayin zakada iyo sadaqada bixiyeen ayan bixin ilaahay ma roobeeyo reer buntlandow ama dadweynow run baan idiin sheegayaaye waxaan idaan rabin dawladda idiin qaban mayso wanaagga aad rabtaan nin haydinka yimaado xumaha aad diidantihiinna haydinka muuqdo waxaan ka codsanaynaa marka si dadka dembigaa galay ciqaabkoodii loo dedejiyo oo sharciga la hor keeno laamaha dacwada galalkii dacwada gacanta ku haya inay dedejiyaaniin dhibtu waxay noo ka imaanaysaa oo dadku ay ku hadlayaaniin arrimahan waxaa sahlaya kaysaskii iyo dembiyadii ay galeen baynu la daahaynaa mugdaynu haysanaynaa hal sanay qaadanaysaa kays qaadan karaa bil ama 20 beri dadku waxayna ka sugayaan marka cadaalad dadka inaanu ku qaadno haddii arrintaa aan la dedejin maxkamadaha gacanta ku hayaa waa inay dedejiyaan dadka kaysaskooda waxaan ku raacsanahay wasiirka cadaaladda in ciddii ku shaqalay ay dedejiso waan ku raacsanahay ciddii ku shaqalihi inay dedejiso laamaha dawladda dunuubta dhacda ciddii ku shaqalay inay dedejiso waxaanu ku amraynaa wasaaraddana inay kormeerto oo daba gasho oo sida wasiirku sheegay kiisas iska yaalla oo maxay ahayd kiisaska ugu xuni inaanay muddo dheer qaadan in wasaaraddu daba gasho iyo ciddii ku shaqalay waa ku raacsanahay